Senegal, Guinea-Bissau, Saint-Domingue, Prince, 13. halkan waxaa ka soconaya daawadayaal su-aal isweydiino iyo cashiro ay wadaagayaan qurbo joogta qaaradda Yurub oo shir uga soconaya magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka. Shirkaanna waxaa ka qayb galay xubno matalaya Soomaalida ku nool wadamada qaaradda Yurub waxayna ka wada hadlayeen fikradaha la xiriira isdhexgalka dhalinyarada iyo dhibaatooyinka soo galootiga ama qaxootiga Soomaaliyeed ee kala kulmaan wadamada ay martida ku yihiin. waxaa soo qaban qaabiyay garab ka mid ah jaaliyada ka dhisan magaalada Darmstadt ee gobolka Hessen oo kaashanaya hay'adaha u dooda soo galootiga. Kawthar Media ayaa maalintii afraad ee uu socday shirkan waxay su'aalo ka weydiisay mudane Aadan Ibraahim Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Darmstadt. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Aadan Ibraahim Xaaji, Soomaalisha Kultuur Integraasyon Farcayn ayaan waxaan ka ahay gudoomiye ku-xigeenka ururkaas. muddo fara badan waxaan ka shaqeeyaa arrimaha oo ajaanibta ee wadankan Jarmalka ah. marka halkan waxaan ku qabanay mashruuc ay soo fangaraysay hay'adda u qaabilsan dhalinyarada oo la yiraahdo marka la soo gaabiyo loo yaqaan Erasmus. ayaan waxaan ku qabanay seminar socon doona muddo 7 beri oo laga bilaabo 3 bishii shanaad ilaa 9 bishii shanaad soconay. maanta maalinka naga afraad bay noo tahay. marka seminaarkaas oo dhalinyarada Soomaalida ay ku baranayaan sida isaga difaaci lahaayeen haday la kulmaan arrimaha xaq jirnimada iyo sida ay bulshada u dhaxgal lahaayeen iyo waxay kaloo ku baranayaan seminaarkan fursadaha ka jiro Erasmus project oo maxay dhalinyarada aqoontooda kor loogu qaadayo fursadahaas jira si ay uga faa'iideysan karaan xagga waxbarashada iyo xagga tababaradaba. fursadahaasna waxaa ka mid ah in ardada loo qaado ama dhalinyarada loo qaado wadamo dibadda ah oo xataa ay suurtagal tahay in Afrika loo qaado Yurub ka baxsanba in loo qaado ay suurtagal tahay. sidaasaana marka dhalinyarada ay Yurub isugu bartaan oo uga faa'iideysan fursadahaas. waxaana seminaarka ka soo qayb galay Soomaali ka kala socotay ururo Soomaali oo ka kala socday wadamada Finland, Norway, Sweden, Portugal, England iyo France. Jarmalkan wuxuu ahaa fursadaas qoladii maanta martigelisay baan ahayn ururkanaga. waayahay mudane gudoomiye ku-xigeen waxaad noo sheegtaa seminaarkan aad bulshada u qabanaysaan ma markii ugu horeysay aad ku qabataan Yurub mise horey kulamo noocan oo kale aad u qabateen؟ waa maxsan tahay Kawthar. barnaamijyada noocaan ah muddo badan baan soo wadnay. waxaan lagu qabanayay wadamo ay ka mid yihiin Finland, Norway, Sweden, Ingiriiska, France iyo wadanka Turkiga. laakiin waa markii ugu horeysay oo aan ku qabanay Jarmalka. fursadaas maanta anaga ayaa u helnay inaan marti qaadno dhammaan wadamadaas dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee ka socotay halkan. waxaana seminaarkan ka bixinayay aqoon-yahano ka kala socotay wadamada Sweden iyo Portugal iyo Ingiriiska. maxaa marka ifaalooyin kaga soo baxay kulamada noocan oo kale qabanaysan؟ waxaa nooga soo baxay ifaale aad u weyn oo ah in dhalinyaradu ay aqoontooda ama khibradooda hadii inta ay joogan wadankan ay la kulmaan dhibaatooyin ama xagga cunsuriyada uga imaanayso ama fursado in aqoontooda wax ku kordhiyaan oo waxbarashadooda ay kor u qaadaan inay ka faa'iideysan karaan. sababta waxaa jiro budget aad u fara badan oo mar walba ku khasaara codsi la'aan. marka dhalinyaradu waxay hadda awood u helayaan inay ogaadaan meesha ay wax ka dalbadaan iyo sida wax loo dalbado iyo waxyaalaha la dalbado waxa ay ku yimaadaan. dhanka kalena waxaan wareysi la yeelanay mudane Cabdulcasiis Xildhibaan oo kamid ahaa xubnihii ka qayb galay tababarkan isdhexgalka iyo kobcinta aqoonta qurbo joogta Soomaaliyeed. Maxamed Aweys Mudde waa mahadsan tahay. waxaan marka hore idinkaga mahadcelinayaa inaad garateen in qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee caalamka daafihiisa ku dhaqan aad la wadaagtaan wixii aan kaga hadlaynay maalmihii la soo dhaafay shirkii qurbo joogta Soomaalida uga socday magaalada Frankfurt Darmstadt ee dalka Jarmalka oo ay qaban qaabiyeen ururka weyn ee magaaladan ka jira Somali Culture iyo Integration. ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii aan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka u bari lahayn xuquuqaha aasaasiga ah ay u leeyihiin ka qaybgalka dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed, ganacsiga, xiriir wanaagsan ay ula yeelan lahaayeen hogaamiyaasha dalalka ama kuwa siyaasadeed ama dalalka ay degan yihiin. halkan dadka jooga ee Soomaalida ah waxay ka kala yimaadeen dhowr dal oo haddii aan qaar ka tilmaamo ay ku jiraan dalka Faransiiska, dalka Sweden, dalka Finland, dalka Portugal, dalka Ingiriiska iyo Holland
sidii aad arkaysay shalay doodii dhacday waxay ku saabsanayd qayb ka socotay dhinacyo kala duwan oo is-eedeynaya ayuu looga hadlayay dhibaatooyinka jira looga hadlayay gaar ahaan wakiilo ka socday dowladda iyo kuwa rayid ahaa oo isdifaaciyay iyo qaabka karoonaha ee loo isticmaalay ee dadka jooga qurbaha ay isticmaalaan iyo awoodaha xad-dhaafka ah ee ay booliiska u isticmaalaan shacbiga markaas ay u arkaan inay soo galato yihiin. dhanka kale Cabdishakuur Jarmal oo xubin ka mid ah jaariyadan ayaa fariin u diray Hirshabelle diaspora Kowsar Median waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa in oo diaspora Hirshabelle ayaan maanta u gogol xaareynay oo anaga shalay waxaan noo gogol xaareeyay in Biidan oo ah Puntland diaspora anaga maanta waxaan u gogol xaareynaa in Hirshabelle diaspora waa u sheegnay dadkii madaxda ahaay oo waagii waxaan anaga aad nalaga shaqeeyay oo nala sameeyay oo adiga muddadii 6 sano oo nala daba socday oo maanta miriheed aan qurinayno haddana waxaan rabnaa in aan dadkaas walaalaheen ah oo diaspora Hirshabelle aan shaqadii u bilaawno dadkina waa u sheegnay ayagana waxaan leenahay in waxyaalo badan ayaa nagu soo xujeeyay waxyaalo badan waxaan ka sheegsan doonaa telefoon ayaan kaga sheegsan doonaa sheekada waa soo dhameynay wixii nagu xirantaa waa idinka anaga waxaan soo marnay in qodax badan idinkana qasabba waa marisiin qodaxaas baran waxaa loo baahan in loo adkaysto waxaan la adkaysanin waxaan laga madheef hadda maanta anaga waxaan gurinaynaa mirihii aan shalay qodaxda soo marinay waxaana aad ugu mahadcelinaa in xildhibaane oo galmudug diaspora aad iyo aad wax ugu qabtay oo maanta dheena xildhibaane waa mahadsan tahay kun jeer haddana waxaan kusoo wareejinaa xildhibaan sida uu sheegay Cabdishakuur gudoomiye Cabdishakuur Jarmal waa mahadsan yahay ujeedkeenu wuxuu ahaa dib u yagleelka ururo mideeya qaybaha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka ah asaaskii ugu horeeyay waxaa la dhigay urur ay ku mideysan yihiin ururada dhalasho ahaan ama magac ahaan ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland oo ku midoobay urur la yiraahdo magaciisa Biden halgan dheer oo shaqo ah oo ay qabteen waxay ku guuleysteen wax badan inay ka qabtaan dhibaatooyinkii iyo baahiyihii ay ku qabeen dalalka reer galbeedka ah hadda waxay gaareen inay gudaha Soomaaliya dadka jooga u adeegaan annaga oo kaashanayna kana tusaale qaadanayna jidkii dheeraa ee ururka Biden ay u mareen sidii loo heli lahaa urur ay ku mideysan yihiin waxaan baaq u dirnay qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug waxay kama dambeystii heshiis ku noqdeen dhismaha urur mideeya oo la yiraahdo Gaydan oo ah ururka aan maanta martida ugu nahay dalka Jarmalka waxa socda olole aan doonayno inaan ku mideyno qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ku mideysan dowlad goboleedka Hirshabelle oo aan doonayno inaan u sameeyno urur ay ku mideysan yihiin si loo soo dedejiyo dariiqaas oo aan u aragnay kan ugu habboon dadka Soomaalidu ay ku heshiin karaan dad wada socda ayaa heshiis iyo horumar gaari kara waxaan leenahay ballantii aan idinka qaadnay ee ahayd abaabulka aan ugu jirno inaad heshaan urur idmideeya halkiisu ka socdaa gabagabadii tababarkana waxaa soo xirtay Faadimo Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha garabka jaaliyada ee ka dhisan magaalada Daarmashtaad ee gobolka Haysan dhalinyarada kala dagaalanka dhalinyarada waxyaabaha xaq jirka ah in dhalinyarada laga wacdiyo in dhalinyarada maxay ahayd isdhaxgalka bulshada loo sameeyo in dhalinyarada ay naqdaan dhalinyaro maxay ahayd wax kasta oo yacni dhibaato ah oo kor iman karo dhalinyaro iska celin karta inay noqdaan ugu dambeyntiina maalintii 9aad ee la soo gabagabeeyay tababarkan isdhexgalka bulshada iyo ka hortagga xagjirnimada ka qabsoomay magaalada Daarmashtaad ee dalka Jarmalka waxaynu wareysanay qaar kamid ah ka qaybgalayaashii halkan mas'uulka ah ururka jaaliyada Soomaalida ee dalkan Jarmalka si magaalada Daarmashtaad baa martigeliyay oo u ah dadka hawsha fulinaya halkan anigu waxaan shakhsi markaa ku taageeraya inay arinta ku guuleystaan oo kala shaqeeyay arinta inay hirgasho marka waxaan rajaynayaa inta maalmaha noo dhiman inay si wanaagsan noogu dhamaadaan
marka waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Germany ama ururkan Germany ee ka dhisan magaalada Darmstadt iyo shacbiga ku xiran inay sida wanaagsan oo diiran inagu soo dhaweeyeen barnaamijka hadda ay nala daadihinayaan. waxaan kaloo mahadcelinaynaa saxaafadda ugu horeyso Shabeelle oo xaqiiqdii ilaa maanta aan dirtaan nala socda baahinaya howlo u socdaan. waxaan rajeynayaa inta ka dhiman inay si taageero inagu dhameystiraan. waa ku mahadsanyihiin. marka fifaaraha kaga soo baxaya kulamadan oo kale maadaama hore mar uga qayb gashay haddana la filayo inaad goobjoog u tahay marka kulamo noocan oo kale bulshada loo qabanaya maxaa idinka soo baxo fifaara idin muuqanaya? xaqiiqdii waa su'aal wanaagsan way uljeed aan u sameeyeen waxay tahay waa soo sheegtay way markii ugu horeysay maahan oo dhowr jeer been hore u qabanay sanooyinkii la soo dhaafay. uljeedkan ka danlayna waxay tahay ugu weynba in aynu tayeeno Soomaalida ama qurubjoogta Soomaalida ku dhaqan qaaradda Yurub ay noqdaan dad tayo leh waxtar leh marka hore awoodi kara inay bulshada marka rayidka iyo matalaan wadamada degan dad u adeeg kara noqdaan oo baahiyo ay qabaan ka xaqabtiri kara isku xir kara shacabkooda iyo maamulka marka ay dalka joogaan kadibna ay noqdaan kuwa awood u yeelan kara in ay wadamada jooga iyo dalka ay kiimada Soomaaliya isku xiran siiba maadaama Soomaaliya maanta inuu ognahay inuu noqonay dad marka maamul goboleed isu qaybiyay Soomaaliya maamul goboleed ka jiraan waxaynu marka xooga saarnay in maamul goboleedyada Soomaalida maamulkooda qurbo joogta ayuu maamul goboleed ahaan isu beesanaya ay urursadaan ay midoobaan marka waxaan ku guuleysanaynaa inaynu mideyno jaaliyadaha Puntland ee ku dhaqan Yurub dalad been u sameynay waxaynu ku guuleysanaynaa inaynu mideyno jaaliyadaha reer Galmudug ee ku dhaqan Yurub dalad been u sameystay halka hadda maanta waxa jooga labada jaaliyadood daladahoodii gudoomiyahoodii halka jooga imaamulkoodii ayaa kamid dadka lagu casuumay halkan waxaan halkan kale ay lagu casuumay dad matala xubnaha u dhaqaaqa jaaliyadaha Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo halkan nala jooga qudhooda daamanaya arkaya sida hawlaha u socdaan kadibna tusaale ka dhigan kara ayagoo inay sameystaan dalad u gaar ah jaaliyadahooda. ujeedkan leena waxay tahay in daladaha dhimanna la mideeyo idilada sameystaan saddexdaad noo harsan waxa weeye Hirshabeelle Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaynu dalada inuu sameeyno kadibna aynu sameysano dalad guud ee Soomaalida qurbo joogta ee Yurub. ujeedkan taa weeye marka midnimadii inaan soo celino inaynu shacabka tayeeno inay noqdaan dad wax ka bedeli kara dhibaatada Soomaaliya gaartay haddaynu qurbo joogta mideyno qurbo joogta ay noqdaan dad mideysan oo tayeesan wada socda waxay tusaale fiican u noqon karaan inay Soomaalida kale Soomaaliya joogtay midoobaan inaga fursad u haysana oo Ilaahay naga soo badbaadiyay dhibaatadii dalka ku dhacday marka inaynu annaga aynu ka shaqeyno way inaynu halkan ka shaqeyno midnimada Soomaalida guud inaynu tayeeno dad waxtar leh isbato mideysan dalkii wax marka wada geyn kara. ujeedka ugu weyn ee u socontaa way haddana meel fiican noo maraysa waxaan rajaynaynaa 2 sano soo socday maanta inuu joogno sanadka 2024 markii la gaaro in dalada guud ee Soomaalida ku dhaqan qurbaha inaynu iyadoo mideysan taagan inaynu gaarsiino taa sameynteeda haduu la yiraahdo. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay Xaawa Cabdi Barre degan wadanka Faransiiska waxaan ka tirsanahay ururka Bayden Puntland Diaspora Forum waxaan ahay wakiilka Soomaaliya ee dalada Bayden waxaan kasoo qayb galay shirkan ka socda Darmstadt wadanka Jarmalka oo danaha guud loogu adeegayo danta guud ee Soomaaliyeed iyo isdhexgalka mideynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga qurbaha naga og ilmaheena ay dib badan ka haysato qurbaha ilmahaas inaanu mideyno iyo dadka hadii aan macnaha hoosta la iska soo dhisno caruurta iyo dadka iyo faamilada la mideynin midow Soomaaliyeed jiri maayo. waa mahadsantiin. waxa ahaa shir isdhexgalka bulshada ah oo Erasmus Plus la yiraahdo iyadu bixiso waxaan uga soo qayb galnay dhowr urur matalaya jaaliyada Puntland ee Yurub ku dhaqan iyo urur matalaya jaaliyada Puntland ee jaaliyada Galmudug ee ku dhaqan Yurubta markii ugu horeysana kulanana maaha kulamo kale hore saas u dhacay oo uga faa'iideynayno garanaysa bulshada ku dhaqan matalada waxaan ku raadaya Galmudug iyo Puntland si looga faa'iideeyo marka qodobadaasi iyo qodobo kale muhiimadda ugu weyn ururkan waxa ahayd in dadka immigrantska ah dadkeena ka yimid Soomaaliya ee soo galay qurbaha sidoo uga faa'iideysan lahaayeen ama ugu noolaan lahaayeen wadankan aan joogno Yurubta ah. marka shirkan waa kaga duwan shiryaasha ka qayb gal jirteen waxaan arkayay doodo fara badan oo tacdiid laga galo dadka qaxootiga ah iyo dhibaatooyinka qudhooda ay geystaan waxyaabo badan ayaad ogaadasheen maxaa kaaga soo baxay?
والله سفيعا هرتا waxaan aad ugu mahadnaqaynaa walaalahay ururkan Darmstadt oo si fiican u soo abaabulay dunka aad gudoomiye aadan iyo ururkiisa marka waxa way shirku si fiican u socday waxa way dadku waxa way maalin walba wax baa la faa'iideeyay oo waxa way anaga laftirkeeda fikirka ma haysan Soomaalida xaggan ku dhaqan Jarmalka say u nool yihiin markii ugu horeysay way aan ka qayb galno aan Jarmalka isugu nimaadno aad ayaa mahadsan tahay mudane madar oo ka socday dalka Holland kana qayb galayay shirka Darmstadt uga socday diasporada qaaradda Yurub Culture Media aad bay u mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faarax Aadan Yuusuf Faarax Dheere waxaan halkan uga soo qayb galnay shir oo AAU-da ay bixinaysa dhaqaalihiisa ururo badan ayaa isugu yimid ururada isugu yimid waxaa kamid ah Galmudug Diaspora ururo kamid ah iyo Puntland Diaspora ururo kamid ah ayaa halkan isugu yimid shirkuna wuxuu noogu socdaa si qurux badan hadafkii shirka aan u lahayna sidii aan rabnay ayuu noogu hirgalay ma sha Allah wuxuuna soo gabagabi doonaa maalinta Axadda hadii Ilaahay yiraahdo marka shirkani ma markii kugu horeysay oo aad Jarmalka uga qayb gashay adigoo markaasi maanta Culture Media hor fadhiya shirkan Jarmalka imaanshaha aan nimid waa markii noogu horeysay aan nimid laakiin wadamo badan oo European kamida ayaan shirar u tagnay shirarkan oo dhaqaalaha ay bixiso AAU-da wadamo badan aan tagnay laakiin waa markii noogu horeysay aan Jarmalka nimadno waxaa nooga soo baxay xagga isdhexgalka bulshada iyo mataqaanaa in bulshada la isku xiro dalka iyo dibadda dadka Soomaaliya joogana sidii mataqaanaa loo ururin lahaa oo mataqaanaa danahooda looga shaqeyn lahaa oo loo hagaajin lahaa arintaas ayaa mataqaanaa waan isleenahay wax badan baa idin qabsoomay dadku waa kala ra'yi duwan yahay waxaad arkaysaa in qaarkiin mararka qaarkood aad isku raaci karin fikradaha marka arrintaas sidee u arkaa horta waa sax dadka dhan isku fakar ma noqon karaan oo waxyaabaha qaar waa lagu kala duwanaana laakiin wadamadan aan joogno waxaa lagu kala baxaa cod markii wax la isku qabto codaa la geliyaa codku meesha u bataana la qaataa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nicimo Xareed waxaan ka socday London waxaan ku suganahay Germany waxaana ka qayb galay seminar aad weyn oo ka dhacay dhalinyarada sida wax loogu qaban lahaa sida loo horumari lahaa sida isku dhexgal lahayn bulshada iyo ururo badan oo bulshada u adeego waxayna ii ahayd faa'iido badan maadaama aan qurba joog ahaa dalal badan aan ku soo wareegay runtii waxay ii ahayd wax aan la soo koobi karin alxamdulillah anigana dhalinyarada ayaan la shaqeeyaa dhalinyarada aad aan u jeclahay dhiigayga ku shaqeeyo maxaa yeelay dhalinyaro markaa maqla si gooni aan ugu danqadaa waana wax ilaahay u abuuray ma ahan wax qofka bini'aadanka ay iska dooran karto maxaa yeelay xabsiga baan ka shaqeeyo dhalinyarada ayaan aad iyo aad ula shaqeeyaa meel walbana aan u wada haday tahay sports haday tahay wadan kale haday tahay waxay iga codsadaan waxay ii keenaan fikirkooda ayaan u hirgeliyaa waxay jeceliin aan u sameeyaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin maxaa la dad qiimo badan iyo dhalinyarada aad iyo aad insha Allah qiimo badan waana la sii shaqeyn doonaa run ahaantii ayagana waan ku soo casumi doonaa meesha aan deganahay haddana insha Allah waxaan ku sii wajahanahay dalal badan oo ugu soo horeysa dalka Norway iyo Scandinavia Finland iyo waxaan u sii socdaa dalalkaas oo youth kale aan kala kulmi doona data sports iyo haday tahay waxbarasho iyo haday tahay maxaa la dhahaa ii sheeg fikradahooda inaan soo dhageysto oo soo aruuriyo maxaa yeelay waa qasab hooyo ahay inaan soo aruuriyo ra'yigooda oonan sii gudbiyo si ay wax uga faa'iidaan generationka maantana ay yihiin iyo kuwa dhalinyarada beriyaanana laakiin waa dhalinyarada maanta loo baahan yahay inay maskaxdooda furaan shaqaystaan wax bartaan project kasta ay qortaan maxaa yeelay dadkan aan u jeedid wadamada aan ku noolnahay ilmo yar yar wax soo saaro sida haday tahay macnaha fikradaha oo kale haday tahay hada Facebook wiil yar iska lagu leeyahay Zoom ka hada lagu shaqeeyo hada wax walba oo social media dhalinyaro yar yar soo saarta lagu leeyahay marka waxyaabahaas in ayagana ay sameeyaan ka badan ay sameyn karaan dhalinyaradeen waa dhalinyaro aad u aqli badan ilaahay si aqli iyo aqoon iyo ciise iyo diin iyo sharaf waxaan leeyahay Allah ku xafido meel kasta ay joogaan ilaahayna ha ka qabto qadarta xun an nafteena toodana Allah xafido aad aan uga mahad celinayaa
tviyada waaweyn oo maanta kasoo qayb galay ay ka mid yihiin Kawsar Media iyo boqorka bartamaha aad aan kaga mahad celinayaa si wanaagsan insha Allah waan idinla shaqeyn doonaa intaan sii joogi doono Kawsar Media walagu aflaxay Kawsar Media walagu aflaxay lana uma wareegto bulshaday u waranta lana uma wareegto bulshaday u waranta Kawsar Media walagu aflaxay Kawsar Media walagu aflaxay lana uma wareegto bulshaday u waranta lana uma wareegto bulshaday u waranta Kawsar Media walagu aflaxay Kawsar Media walagu aflaxay